maantay waxaa halkan ku qabsoomay doorashadii toddobaad ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu qabto maanta oo bishan 15 tahay bisha November 2018 runtii doorashooyinka aan qabsan jirnay waa markii labaad ay nagala soo qayb gasho hay'adda FIFA markii ugu horeysay nagala soo qayb gasho waxay ahayd 2006 doorashadaas oo Baydhabo aan ku qabanay maantana way nagala soo qayb galeen runtii waxay sumcad u tahay Soomaaliya ayay sumcad u tahay in ay FIFA iyo CAF ba yimaadaan oo doorashada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ka soo qayb galaan taas waxay muujinaysaa micnaha in kubadda cagta Soomaaliya wax iska bedeleen qaabka isku dooranayaan FIFA iyo CAF ay aamineen inay inta Soomaaliya imaadaan doorashadana si rasmi ugu soo qayb galaan una soo diraan dad matalaya marka runtii farxad ay noo tahay kalsooni ay noo tahay waxay noo tahay dhiirigelin in aan micnaha waxaan qabsanayna wax ka sii weyn noqoto taariikhna u tahay dalka iyo kubadda cagta Soomaaliyeed طبعا هذا أفر سنة وكلا أيام الجدارتي وهذا جابدنا تحرير كصومالية دي كبد عكتا مركا إن قرشها دجن يشقوين كإنوريا لما حين قدرنا إن أفر سنة وكلا دبلي دورتي إلى ما دسكلا وحن أمهد علينا حبني دورتي إن أفر سنة وكلا دورتنا والشقة كلا إن وحيابها أن حق سان ربنا وحكم ده وقرنتي إن كبد عكتا كبهنا ضل قدن إن كبهنا وأنجرسين من قبل إلى دقم إن جرسين كبد عكتا هرمنتي ده waxyaabaha kale muhiimka waxay tahay inaan kor u qaadno aqoonta memberskan macnaha xubnahan in aqoontooda kor u qaadno dhinaca maamulka dhinaca farsamada iyo dhinaca kaleetaba waxyaabaha kale muhiimka waxay tahay inaan abuurno isfaham guud oo u dhaxeeya xubnaha ku sugan kala yani kooxaheena iyo maamul goboleed in isfaham loo abuuro kubadda cagtana ay u noqoto hal mid ah oo dadku ka wada shaqeeyaan waxa kale muhiim ah inaan xoojin doono 4 sano sidii Soomaaliya ciyaaraheeda internationalka dalka loogu ciyaari lahaa taas oo aan horay ugu dhiirana 2017 markii gudoomiyaha qaaradda Afrika yimid welina uu barnaamijkaas noo taagnaa laakiin arrimo yar ay nagu xanibnaa laakiin waxaan ka dhameyn rabnaa inaan ciyaarihii dibadda lagu ciyaaray dalka aan keeno waxyaabaha kale muhiimka waxay tahay mashaariicda ay FIFA bixiso qaarkood waxaan ka hirgelinay magaalada Muqdisho laakiin waxaan rabnaa in hadda goboladana inaan mashaariicdii oo FIFA aan ka hirgelino aydan waxyaabaha noo calaamaysan ka mid tahay insha Allah taala gudoomiye dabcan hadda waxaa jira in garoonkii Stadium Muqdisho oo dayactir u baahan yahay marka qorshihiina shaqooyinka ugu horeeya qaban doontaan qayb ka yahay Stadium Muqdisho mar horaan uga qayb galnay hadda wiigii la soo dhaafay shirarka jira aan ka qayb galnay oo ay wasiiradu noogu yeertay shirarkaas oo ah dayactirka Stadium Muqdisho annagu waxaan matalaynay qaybta kubadda cagta in hadda dayactirka bilowdana waa la soconaa waxaana soo booqanay shalay oo u dambeysay Stadium Muqdisho joognay annaga iyo wasiirada iyo xiriirada kale taba qayb weyn aan ku leenahay kubadda cagta inaan ka qaadano barnaamijyada qoran oo hadda wasaaradda anaga noo qoran ka mid tahay dhanka dawladdu kaalinteeda markay qaateen anagana kaalinteena qaad sababta ah waxaas oo dhan waxa loo sameeynaya waxay tahay xiriirka kubadda cagta inuu dib ugu shaqeeyo garoonkii waxay dawladdu u maalgelinaysa ama dadka ay bahwadaagta la tahay u raadinayso annaguna dhinacna ka galina maadaama ay shaqadana tahay marka ugu horeynaba wax qabadka oo Stadium Muqdisho inay qaybta ugu muuqataan ka maqan dhowr bilood ka hor waxaa dalka yimid markii ugu horeysay madaxweynaha CAF Axmed dabcan hadda waxaa jira hadalyan ku aadan in uu Soomaaliya imaan doono madaxweynaha FIFA Gianni Infantino arrimahaas bal ka waran horena waa u codsanay haddana shirweynaha intaan ku jirnay waa maqlaysay ninka ay ka socda FIFA inaan fariin u faraayay on lahaa gudoomiyaha waxaa laga sugayaa Soomaaliya anoo meesha ku cadeeyay in aan u gudbinay madaxda dawladda sida madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayr iyo wasiiradeena isboortiga Khadiijo inay dawladdu dhan oo sugaysan oo sheegnay waxaan hadda sugaynaa waqtigu imaan lahaa asaguna kalendarkiisa maadaama uu buuxo waxaan ka sugaynaa fariintan hadda aan ugu dirnay inuu soo sheegdo laakiin uu ballan qaaday inuu Soomaaliya imaado hadii Ilaahay raado ugu dambeyn dabcan waxaa la soo maray waqtiyo aad u adag oo kubadda cagta Soomaaliya laga soo shaqeeyay maadaama hadda mar kale lagu doortay gudoomiye isleedahay Soomaaliya dabcan ciyaarteeda kubadda cagta waxay u muuqataa mid qabsatay wadiiqo aad u wanaagsan oo horumarka kubadda cagta wuxuu noqon doonaa mid sare u kaca 4 sano la soo dhaafay waxbaan bedelnay sida hadda aan Congress ka xusnay 4 sanana waxaan nagu taagan inaan wax kala bedelno hadda 4 sano waxaan noo hirgashay in koox qarameed ee final noo soo gaartaa noo hirgashay oo aan diyaarinay muddo 3 sano aan diyaarinay 4 sano waxaan rajaynaynaa guushii aan taas soo gaarnay kuwa ka bad inaan garaano kubadda cagta tayadeedan wax laga bedelo dhanka naadiyada aan wax ka bedelno dharka qaramadan aan wax ka bedelno dhinaca goboladan aan wax ka bedelno intaas markii la isku geeyana waxaan kaloo qorshaha noogu degsan inaan raadsano dad expert ah macnaha ama xirfadlayaal kuwan ka sareeyay inaan ka keenno dibadda si ay dhanaanka ay ciyaartooydeena yararka ah
ay laftooda aqoonta annaga naga maqan ay u geliyaan maadaama macallimiinteena ay dadaaleen haddana waxaa jira dadaal macallimiinteena meel ayuu joogaa mid ka sii badanaa jira adduunku waa kala horumarsan yahay dadka naga horumarsan rabnaa inaan macallimiin ka keensano si farsamadii kubadda cagta wax uga bedelno isla markaasna marka farsamada wax laga bedelayo waxaa qorshaha 4 sano ugu jira inaan badino tirada garoomada oo hadda aan haysano inay intaan ka bataan marsha lagu badinayo Muqdisho kaliya maaha gobolada kale in oo garoomo kala duwan loo helo si kubadda cagta ay u noqoto mid meel walba ka jirta farsamadiina laga hormariyay ugu dambeynna meesha u soconan ay tahay in la helo qaran kubadda cag oo tayo leh